الله ربي نبي محمد الله ربي نبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا نوقف هذا يا مقعد دولة فدرالك الصومالية يقول دي طبعا قابضة آسك قرن رئيس الوزراء ومقعابي وحنا مركوبوا الرئيسة تحسود دريا الله ونحرسته ولكن عبد الرحمن عثمان إنجنير ياريسو وها قف قارئ وحنا إن تحسود درو لما شعبنا الصومالية qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ay naga siiyo allaha u naxariisto ilaahay su'aasha ha u fududeeyo cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adilba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen shakhsi karaamo leh buu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xiriir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsana cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar uu guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaatibeenu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayaan si laban laabnaa suurta gelinaa in aynu dalkeena ka aasaasno nabad islaaxda magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba Soomaaliyeed ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo waxaynu ku sugooteynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran waxa jiri doonto oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex shirkadii baroordi qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladaas hadii ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno waxa kale oo doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu cafino dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafino aynu iscafino ilaahay aynu u barino inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh